madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow shacabku ku salaamaya satirkaya ku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkaya ku ilaaliye سعد القرحانيو سنانية عدالة بان سعد القرحانيو سنانية عدالة بان لما ودا سوغيناي سلبيكا هو شرفي سهانكا هو قولي سعدالكا هو نبلي سفركا هو قيري يا سماد برواقادي صدوو صدوو مدحوينهنا صدوو 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 مدحوينهنا صدوو ومكان سنة بدن سلعيو جبسو مريي ومكان سنة بدن سلعيو جبسو مريي adigay ku sugayaano ku saacabadu mayane adigay ku sugayaano ku saacabadu mayane soo dhawow madaxweynaheena soo dhawow waxaan ku soo dhaweynay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed ducaale xaaf ayadoo runtii bulshada qaybaheedii kala gedisnaa iyo mas'uuliyiintii galmudug aysan u kala harin ayaan ku soo dhaweynay madaarka ama aeroboorka caasimadda haddana madaxtooyadii unbaan joognaa waxaan rabnaa inaan dhegaysanno biidnillaahi alkariim warbixinta madaxweynaha maadaama safarro fara badan uu ku kala bixiyo dalka iyo dibaddiisaba warbixintiisaas baaba waqti qaadanaysa marka aniga jaanisigama bannaanaba mudane madaxweyne ku soo dhawaaba intii badnayd waxaan joognay xamar oo muqdisho oo saad og tihiinba odayaashii maxamed xaashi iyo madaxweyne ku-xigeenkii maxamed xaashi iyo guddoomiyihii baarlamaanka oo xamar aad iyo aad dowladda federaalka uga shaqaysay madaxweynaha khaasatan waxaan u malaynay ahayd bishii hore 13 ayaan heshiis isla gaarnay intii shirka brocessan la aadin bay ahayd madaxweyne farmaajo wuxuu ka soo saaray qoraalkaas inaad akhrisateen iyo inaad aragteen baan u malaynahay markaan brussels ka soo laabanay runtii inaan toos annaga wada socno u imaanay ahayd way suurtageli weyday sababta ay u suurtageli weyday waa uun waxyaalo iska hadda majhuul ah laakiin laga jiro gaari doono hadda lafteeda un lama kala ma istaagin arrintu weli way socotaa haddii aan ku guulaysanana ahla wasahlan haddaan ku guulaysan weynana oo heshiis laga gaari waayo arrintaasna waa ka tashan doonaa insha allah waxaan kale oo aad iyo aad idiin sheegayaa runtii dowladda federaalka aad iyo aad bay maaragtay noo gacan bixaysay wax mucaawanaa kama hayno dhaqaalaheenna kama hayno marka hadda ka bacdi yaynaan ku tashan aan isku tashanno sidaan canshuuru abuuran lahayn sidaan dalkayga u dhisan lahayn aan ka shaqaysan wax aan sugno hadday beel caalam ka timidna dowladda federaalkaa dhexda u joogto haddii canshuur la qaadayna la siin lahaana dowladda federaalkaa haysa